الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إن شاء الله عاوة وحا إنه وناك iyo sharaf badan inay nala joogaan culimadeennii North America iyo caam ahaanba Soomaaliya ee dacwada ugu qidamka iyo waqtigana ku lahaa qaybta badanna ka soo qaatay meel kasta adduunka aad aragtaan daafaheedana ka muuqda oo jooga culimadu caawa insha Allah taala waxa laga hadli doonaa heshiiska iyo raadka wanaagsan uu ku leeyahay qofka muslimka iyo bulshada intaba. إن شاء الله ندوده وحكا قيب قادن دونا فضيلة الشيخ الدكتور شيخ عبد الرحمن الشيخ عمر وحنا كهل دونا فضلك هشيسكو ولي هاي وحا إن شاء الله وكا قيب قادن دونا فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد شيخ عبد الرحمن كاريه وكهل دونا عفوك ليس عفيو دادك مسلمين تا يوناك ولي هاي إن شاء الله تعالى وحا قيبت صدحات قادن دونا فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد وكهذا دونا حقا ضدك مسلمين تا إسكوليهين إن شاء الله تعالى ندود وحين نوب بلاوان دونتا سيدا أيوك له الرئيسو وحا أمرك كوبات كسور دوين إياه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر وكهذا دونا فضلك إن شاء الله تعالى إيش إسكوليه. فضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هشيسك أهمية الإصلاح أما هشيسينتا مهمة إلى ذا هي فضل إلى ذا في الإسلام أي كل ذا هي إسلام كجوده هيسا شك وحن لهين ضدك خلافك إيو مرنك إيا كالتقى إن ويهي هبك أقوين أو استعمال الشيطان كا سيو أمدا مسلمين تا ugu baabi'iyo qof ahaan iyo ummad ahaan intaba iyo qoys ahaan intaba marka waa silaaxa uu adeegsado shaydaanka khilaafka iyo kala tagga wuxuu ka bilowdaa in khilaafka hadal uu ka bilowdaa iyo dood iyo muran marka dambana wuxuu tagaa dagaal iyo dil iyo isku xadgudub ayuu ku dhamaadaa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta dadka haddii khilaaf u dhex galo khilaafkaas wuxuu baabi'iyaa ummadaha wuxuu baabi'iyaa qoysaska wuxuu baabi'iyaa dadka isku qoyska iyo caa'ilada isjeclaantoodii isku xirnaantoodii iyo wax wada qabsigoodii iyo waalnimadoodii oo dhan buu baabi'inayo. marka waa cadow aada khatar u ah waa cadow aada halis u ah haddii aanan heshiisiin jirin ama dib u heshiisiin jirin ummaddu waa halaagsamaysaa. qoysaska haddaan la heshiisiin waa halaagsamayaan afraadda haddaan la heshiisiin waa halaagsamayaan. marka muhiimadda uu leeyahay ugu weyn marka ugu horeyso يعني مركو رسوا عبادة إلهي لو قد هذا سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يريه وأدبو وأماني وهو جعلها رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي نقرأ كسم الله بدن وكل شيء عز وجل
oo islaaxa ama heshiisiinta dadka la heshiisiyo ahamiyada ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka meelo badan uu ku sheegay waxaa arkaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay caza wajal inuu ku leeyahay qur-aankiisa fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka cabsada oo dhexdiina hagaajiya waxaa ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala caza wajal faman khaafa min muusin janafan aw ihman fa aslaxa baynahum falaa ihma calayhi ina allaha gafuuru raxiim qofkii ka cabsada leexasho nin dardaarmay xaggiisa dembi ma aha oo waa dardaarankiisa qofkii ka dareema inuu ku jiro janaf ku jiro ama dembi ku jiro fa aslaxa baynahum dhexdooda heshiisiyay waxba looma haysta marka waxaa kale ilahi leh subxaanahu wa tacaala dhaartiina haddaad dhaarataan dhaartiina ha ka dhigina mid aad ku hor istaagtaan heshiiska iyo hagaajinta dadka dhexdooda walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas wallahu samiicun caliim ha ka dhigina dhaartiina mid ku gudban walaa tajcalu llaha ilaahay ha ka dhigina curdatan liaymaanikum waxaa loo jeedaa yacni kabdhood ha ka dhigina dhaar badan oo ilaahay subxaana wa tacaala aada ku dhaarataan oo had iyo jeer dhaar fara badan aada maaragtay iska dhaarataan curdatan liaymaanikum dhaaryaashiina mid ku gudboon an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas inaad baarinimo samaysaan inaad ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala dhaartiina iyayna noqonin mid yacni ku gudban oo diidayso samafalkii iyo dadka inaad dhexdooda heshiisiisaan wallahu samiicun caliim ilahi wuxuu leey laa khayra fi kathiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas khayr ma laha in badan oo shirarkooda iyo fadhiyadooda ilaa qofkii amri ma ahe shir lagu amraayo ma ahe ilaa man amara ilaa man amara laa khayra fi kathiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas qofkii amray sadaqo amray ama macruuf amray ama hagaajin dhexdood dadkooda la hagaajiyo dadka dhexdiisa amray waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima qofkii sameeya heshiisiintaas ama sadaqada ama khayrka isagoo ilaahay dartii oola jeedo waxaan siinaynaa ajar aada iyo aada iyo aada u weyn qur-aanku waa badan yahay meelaha ku soo arooray islaaxa wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr haweentii haddii ay ninkeedii ka aragto nushuus hadday ka aragto yacni hadday ka aragto maaragtay jeesasho xaggeeda uu ka jeesto wax dembi ah dushooda ma aha inay dhexdooda heshiis ay sameeyaan waxaa ilahi leh subxaana wa tacaala falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watattaquu faina allaha kaana gafuuran raxiima haweentii yani ha ka leexanina dadka cadaalad ma wada samayn kartaan haweenka uma wada samayn kartaan qalbiga iyo wax kasta ah laakiin ha israacina oo falaa tamiiluu kula almayl leexasho buuxda ha leexanina fatadaruuha kalmucallaqa aad ka tagtaan haweentii markaa iyadoo ah wax meel laga laalaadiyey oo kale ah oo meelna haysan laa hiya daatu zawjin walaa hiya nin la-aan aan ahayn meelo badana ilaahay qur-aanka markaa waa qoyskii dhexdiisii waxa laga hadlay heshiisiintaas waxaa kaloo ilaahay soo arooray ilahay inuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun mu'miniinta ayaa walaalo ah oo keliya cid kaloo walaalo ah ma jiraan walaalihiin dhexdooda hagaajiya ilaahayna ka cabsada lacalakum turxamuun waxaa dhici karta ilaahay inuu idiin naxariisto markaad samaysaan heshiiska iyo nabadda iyo maaragtay walaalnimada ilaahay wuxuu leey wa aslixuu daata baynikum dhexdiina hagaajiya wa aslixuu daata baynikum marka waxaa loo jeeda waxa idiin dhexeeya gaabka idiin dhexeeyo
هجاجية ذات البين. إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وحكوا الله سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. حمان هذه اللي سمي حمان وأكو ذكرتها وإنت ذي لأك قفك لكن اسكعفية فمن عفا اسكعفية وحي اللي سمي حمانتي اللي سمي وأصلح هجاجية فأجره على الله أجر كيس قفك إلهي دشي سويه سبحانه وتعالى إنه لا يحب الظالمين. أيضا وفر بديهين حديث النبي عليه الصلاة والسلام نبي وحولي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. ما يدين شيئا وحكا كدرجة سرية وحكا فضل بدن صونك يا صلاة يا صدقة. قالوا بلى وحيلا دنها رسولك إلهي. قالوا وحولي صلاح ذات البين dadka dhaxdooda oo la hagaajiyo la islaaxiyo salaahu dhaat albayn. wuxuu yiri nabiga fa inna fasada dhaat albayn hiya alhaliqa. dadka dhaxdooda oo fasaad ka dhaco oo fasahaad ku yimaado oo xumaan kala dhax gasho waa xiirto hiya alhaliqa waa xiiraysa waa xiirto. wuxuu nabiga la aqulu innaha tahliqu ash-sha'ra ولكنها تحلق الدين. وحن مليه تمهي حيرتا لكن وحي حيريسا دينتي أو دن حيريسا. وماذا مركي أي هلا نحدود وحكرا نحقلان أما علاد قشو أما لو وقف علاد نحقشو وحا اسكو حير مايو دينتو دا اسكو حير ميسو. هشيس كمركا وحا سهور استاقا لو ضدك إني دينتو دي حيرانتو لو قبيلة دقالنتي labadii qiblo dagaalantay diintoodii waa isku xiirantay. waxa arkaysa ramadaan iyagu isdilaayay dagaaladii Soomaaliya waxa qaar xuseen ramadaan fi ramadaan idoo la Soomaaliya dhiig la daadin dhiig daadanaya oo muslimkii muslim dilaya marka waa isku xiirmay diintoodii isku xiirmayso. fa inna fasad dhaat albayn hiya alhaliqa hiska Abu Daawud wariyay nabiga alayhi salatu wasalaam wax badan uu ka hadlay. wuxuu yiri nabiga alayhi salatu wasalaam tuftahu abwaabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. waxa la furaa irdaha jannada maalinta khamiista iyo maalinta isniinta. fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. waloo dambi dhaafa qof kasto aan ilaahi u shariig yeelin illa rajulun kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. illa qof ay u dhaxayso isagii walaalkiis colaad ee u dhaxaysa ma aha. say waakis qofkii colaad u dhaxaysa waxa laga joojinayaa dambi dhaafkii. fa yuqalu hal andiru hadayn hatta yastaliha. labadan haloo kaadiyo illa ay heshiyaan. andiru hadayn hatta yastaliha. labadan haloo sugo illa ay heshiyaan. andiru hadayn hatta yastaliha. labadan u kaadiya illa ay ka heshiyaan. rawahu Muslim. marka cafinti ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa dib looga dhigayaa li'anna heshiis ma aha ma heshiinin. colaadii iyo naciibki marka waxay keenaysaa in dambigi mutaraakim ku noqdo labadii qof oo colka isu ahaa. waxa soo arooray nabiga inuu yiri ma amila ibn adam shay'an afdala min as-salati wa salahi dhat al-bayn wa khuluqin hasan. ibn adam kama sameeyo shay ka fadli badan salaada iyo salaah dhat al-bayn dadxood inuu heshiisiyo iyo wa khuluqin hasan akhlaaq wanaagsan. waxa reer Quba ayaa dagaalamay dhagxaan isku turtureen waxay isku turtureen dhagxaan marka nabigu uu maqlay alayhi salaatu wuxuu keena تعالوا نصلح بينهم. أنا هشيسين أن كان رياض قباء حافظة سالقة دقالمي أو دقحان لسكو تورتورة أن هشيسين أن كان. وحاو النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة. حبين كستو بني آدم كأوليه وحلقة ربع صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس. مالين كستو قرح ذو كوسو بحثو حبنا هذه هذه كوفي يوهين إلهي كو عافية سبحانه وتعالى وحلقة ربع صدقة مالين كستا. مركز صدقة دي وحكمد كل يوم يعدل بين الناس صدقة.
maalin kasta dadka inuu cadaalad u sameeyo laba qof dhexdooda cadaalad u sameeyo oo heshiisiyo waxay ka mid tahay sadaqay ka noqonaysaa تعدل بين اثنين صدقة لو وقف عدالة السماء وحي نقونيسا او هشيسية لو جيدا عدالتكو هشيسي أنس بن مالك رضي الله عنه وحو يري من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة لو وقف قفكي هشيسية إلهي وحكوسية كلمة كستو هشيسين تاسو يري إلهي وحكوسية أجرك قور حرين تهدى دون رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أقلاضي إن بين لشيقي كرو بين تواوح إلهي أكتيس سبحانه وتعالى إن بين لشيقي كرو هدي لا وقف له شيسين هاي هدي لا وقف له شيسين إن بين لشيقي كرو ومكلثوم وحلقة وري بنت عقبة بن أبي معيد وحي هيد هوانك مهاجرات كالأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أما فينمي ليرهده خيرا أو يقول خيرا وخير سوسيادية أما خير كوهدلا وحليه ابن شهاب لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في 30 نبي بينت وح فصح النبي وحن هذه وحن أوجه وكلي سدح شيء في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها يعني دجالك يدتك هشيسين تيسا نحذو ذا دجالك يدتك هشيسين تنحذو ذا ينك إنه أشاكي هوانتي هوانتي إنك هذا أشاكيسو يعني حلوج ذا وحلوجها جايجينا أيوه لبض يقف نحذو ذا وحلي الشيخ سامي نقيم رحمه الله وحلي هاي فالصلح الجائز بين المسلمين هو يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين فهذا أعدل الصلح وأحقه هشيسين توحر إن عدالتها هاي حلي ابن قيم هشيسين تبنان مسلمين تلحدوا ذا ومدك عسكن إلهي مدو رالي كيه سبحانه وتعالى لبدا قفو إسهيسو لهشيسين أي رالي كيهين كاسا وعدالة سن وأحقي يعني وأنو سن عدالة كبح سنين مركا ضدك هشيسين يسو إلهي وحلو سبحانه وتعالى وإن طائفتان منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهما لبدا قفو من هذه الدقالمان لبدا قفو من هذه الدقالمان هل هشيسي فأصلحوا بينهما بالعدل عدالة الوهشيسي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين عدالتنا السمية إلهي عدالة يجعلها سبحانه وتعالى هذه مت قردرتها قف إنه قردرين هذا أجيده فإن بغض إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله هذه مت قردرتها أجيده أما قفوا قردرين وحدونها النقطة والسقبت قفها قردرين لما قبيلة دقالة قبيلة قردر مسلمين توين ليهن ضد عدالة أو أهل هشيس أو علماء أهل الحل والعقد أو إن ليهن أو ميزامي كرا قفل بوحة أو سمية يو خلط كيس يو قفك قردر هذا وتو أما قويس النقطة أما قفها النقطة قران كرا وين لهلا ضد كاس ضد كأي قفك أي أركان إنه قردرية وين هجنا مسلمين توي قران كرا قفك قردر فإن بغض إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي هذي مد قردر ستو مد كو قردر ستو لا دقالما تنقردر حتى تفيء إلى أمر الله إلى أي أصول نقطة أمرك إلهي فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل هذي صور نقطة وأصول نقطة إن حق أوه جانسنتو نقش هذا الشيء ونقش إن حق أوه جانسنتأه مركا فأصلحوا بينهما بالعدل عدالة كهشيسية عدالة كهشيسية وأقسطوا عدالة سمية إن الله يحب المقسطين أيها الإخوة هشيسين توحي كان أحد عكرتا تذكر قديسا وحي كان أحد عكرتا قف كان لا وقف كان أحد عكرتا لا وقف كلية أيها إسقابان كرا وحا إسقابان كرا
waxaa isqaban kara dad waxaa iman kara dad fara badan uu ka dhex dhici kara wuxuu ka dhex dhici karaa qoysaan soo sheegnay waxaasoo dhan wuxuu ka imaan karaa wuxuu ka dhex dhici karaa dadka kala gedisan waxaa la rabaa markaa heshiiska labada qoloba dadka inay inay heshiiska muhiim u yahay waa inay garanayaan haddaad dagaalantaan walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaa ilahi subxaana wa tacaala ha murmina oo ha isqabanina ha dagaalamina waxa kala jiidjiidanina oo aad fashilantaan watadhaba riixukum dabayshiinina ay tagto muranka ilahi wuxuu leeyahay murmina walaa tanaasacuu fatafshaluu aad fashilantaan markii muran yimaado waa la fashilmayaa marka fashal markuu yimaado maxaa imaanaya watadhaba riixukum xooggiinni yaa tagayo xooggiinni iyo ummadnimadiinni iyo dadkii ishaystay oo ninba ninka kale dhabarka ku hayay oo ninba ninka kale xoogga u hayay waxaa la yidhaha almu'minu kathiirun biikhwaanihi qofku wuxuu ku badan yahay oo sharaf ku leeyahay oo magac ku leeyahay walaalihiis marka waxaa lumaayo watadhaba riixukum xooggiinni yaa tagayo dabayshiinni yaa tagayo hadduu laba qof ahayana waalaho isjeceloo markii hore isku tiirsanaa hadday kala jawaan ninba waa keligiis qoys hadduu kala tago oo haweentii dhinac u baxdo iyo carruurtii iyo zawjkii uu dhinac u baxo reerkaas waa kala tegay midba gaarkiisaa balaayo ku cunaysa haweentiina waa dayacan tahay ninkii waa dayacan yahay carruurtii waa dayacan tahay watadhaba riixukum ay noqonaysa haddii ay ummad tahay waa saas oo kale ummaddii waxaa tegaya xooggeedii dad waxaa laga heebaysto oo isku xiran Soomaaliya masalan ka soo qaad yani lixdameeyadii iyo ummad waxay laga heebaysto li'annaha gudahii iska haysatay iyada heshiis ahayd ninka Soomaaliga ee dhulka ku nool ama Kenya ku nool ama Ethiopia ku nool wuxuu dugsanay oo ku tiirsanaa qalbiga kala jiray waalaha muslim waalihiisa Soomaalida dawladda ah ee jiro ayuu ahaa mid uu dhabarka ku hayo qof walba qalbigu ka taageeray dawladda calanka uu taagan yahay dal kale ee xoog leh in maartay uu taageero oo dhaqaalihiisa ku taageero oo dahabkiisa ku taageero oo xoogiisa ku taageero si ay u jirto marka waxa tagay riixdiinni yaa tagayso marka iskhilaaftaan oo islaysaan oo adinkii nin walba dhib soo gaaray maaha qof kaliya dhib ma soo gaaray qabiil kaliya dhib ma soo gaaray wuxuu soo gaaray dadkii oo dhan uu soo gaaray dhibka watadhaba riixukum saasu ilaahi subxaanahu wa tacaala wasbiruu isu sabra ilaahi leeyahay heshiiska sabar u baahan yahay qolo waa inay sabartaa haddaan la sabrin dhibaa kugu dhacdaa maanta oo dhan ku hayso dhibaa igu dhacay hebel waxaasuu ii geystay waxaasuu ii yidhi sidee tollaa see ugu sabraya see maaragtay uga sabri kara arrinkaa يعني وأرن آدي ولقيت وناك إيمانين واصبروا إلى ليس صبر يسد القاطع فمن عفا والله قال دون إن شاء الله تعالى علماء الله قال دونته لكن هشيسكا إلهي سبحانه وتعالى يكيهي قفك أمده هشيسكا إذا كلا فردينا إلهي وهلاقا يا سبحانه وتعالى وحنا إكزامبل نوعه أمده الصوماليات أيان نوعه مركي يسكو حرنايين waxay ummad casiisa laga heebaysto oo isjecel oo walaalo ah waxa 64 waxaan xusuustaa dadka ciidamada Soomaalida rasmiga oo hirgeliga marka laga reebo waxa jiray dadka shacabka ah iyaga hubka waday oo ciidanka la dagaalamay waa ciidan ma aha waa dadkii shacabka ah waxay biyahaysiinayeen ciidanka waxay u geynayeen raashinka waxay u geynayeen ummadda markaa يعني from جيس إلى جيس واحد أمد عزيز ويسايسته اسكو دكان ولا لا قف كستنا وشرفيا شرف ليه كلا تجي ما أنت محوك هني وحوك هني قفل بين لإهانيستو قفل بقى ولا كهان دلي أم ولا كهان كأت كذي أديك عزك وهلي ميسد واحد كهلي سإهانة كلي أديك عز دلي ولا تقتلوا أنفسكم نفتي إنها دلنا إلى الله سبحانه وتعالى أديك عز دلي adiga isbaabiinay guul aad gaartay ma jira waa jabtay
يعني واجبتي هذا يعني سومالي ده إيجا إسلاينا ما حاجة وحكا أنت وحكا أنت دي السكودر وسومالي كل جودر إيجا السكوسو جدي حوق جودي إيجا السكوسو جدي مركز يجوعان إنه حوق جودي سكودر ماذا يا عقل جودي يا بأس جودي يا دب جودي مركز هالشيء أنت وحاسو دلّي يا وحاسو دب أي إلهي كوها جنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي كعب صلى سبحانه وتعالى ونحذي إنها جاجية جزاكم الله خير جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور شيخ عبد الرحمن شيخ عمر وفضلك إنه هذا اللي هشيسك كنتنا آد وحو عجب بدن إن رسول كلية صلى الله عليه وآله وسلم ما يدين شيئا صون إيه صلاة إيه صدقة وحكفيعا صونك إيه صلاة إيه صدقة أدبان ودد الله لكن وحوليه صلى الله عليه وسلم وحكفيعا ما يدين شيئا وددك مسلمين تهشيس كدحضوضا وحانا كتر ترمسدي شيخ وينور شيئا أما رسولك صلى الله عليه وسلم دين تودا وكتر ترميسه إن شاء الله تعالى قيبت اللبات وإن دتك مسلمين تي أي عفيان يوناق إلى هاي فضيلة الشيخ الدكتور شيخ محمد شيخ عبد الرحمن كاريه أي موضوع إنه واحد الدونة ولماذا قف البوحولية هي شن 8 دقيقة إن شاء الله تعالى جبا وجودا بيسنا لو 7 دقيقة أي يكسر نقن دونان سيدا سيدنا وسون جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وحن هذا الكيغا أن كسوكو بدونا إن لو ذاقو أهل العلم أي كيدا هذين آيات قرآن إيو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسوغا لكن أنت أنا آيات القرآن يا حديث كشريفة أنا جذا قلين وحن شعله إن نفتي إذا يو ولا له بحسوسيو ينقفك بالآدم يقول لا أعرف ينقفك بالآدم يقول قدام كرام قالت أيدك كاركين يكو أنا كأرقبة كيدك كاركينا ويأركين كان أرقنا ومد الله سبحانه وتعالى كأستري ودتك أموتشين وعي آخرنا عاد الله سبحانه وتعالى كرجين يسوع إنه قف كعاسي وكو أسطورة كنا قريو مركا يعني قف مؤمن كدائما مركو أركو أخطاء ضدك كلام مسلمين تكون عيان لابد إنه نفتي سو حسوسته ويا هدي قالت كاجي هذا إيش حسوسي سو أولا وحقول عاية تواضع بالله إيمان يسا وتواضع يسا هذا كلام إن عذر دار بدو يليسا ولا لها يجونا هذا أركته habeen maalinba ee akhtaada iyo gefka ku dhacaya waxa ku fududaanaysa oo kale inaad si macquul ah oo sharcigana waafaqsan oo dulmi iyo ictidaa aanu ku jirin aad ula tacaamusho akhtaada iyo gafafka ay dadka muslimiintii ay ku dhacayaan bal waxaad jeclaan doontaa maadaama aad isku qirtay inaad adiga laftaadu dambiga ku dhacday horena aad ugu dhacday imankana aad ku dhacayso mustaqbalkana aad ku dhici doonto qaar la arkay qaarna ilaahay ku asturay waxaad markaa aad gaaraysaa marxaladda kale ee ah inaad walaaladaada qaldamaya aad la jeclaato wixii aad naftaada aad la jeceshay maxaa noo nafteeda la jecelay
أولاً مركان قفو وحن جعلها أولاً إن أستراد بان جعله قفك عاقلك وساويا ولا قفي كرا لكن مركانو أنقفو نفته إذا وحن لا جعله أستراد وأستراد دي محلو شيء إن دنبي أن كل عي أنو نقون دنبي مقران سامحيت ولا إنفافي أنو نقون وحن نفته إذا لا جعله إنه الله سبحانه وتعالى يدم بدافو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث كاسي يعني إلا يرانتي وانسو أخري شري لكن دور شير وان أخري إن 40 نووي عن أرضي أنو أخري وان استعمالي شرح الشيخ ابن عثيمين ومن يعني من أحسن الشروح ويان لو شرح 40 نووي أو 40 نووي وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شيخ مركو حديث كاسي وفسير أي وحان كأخري هذا أنو نفتيدا أنو عبصدي نفتيدا أنو عبصدي مركو شرح يقول كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم مدكين لا يؤمن أحدكم مدكين الرمين مايو وإيمان كاملة هلي مايو حتى يحب لأخيه إلا أولانك لتشعل عضو ما يحب لنفسه وحنا نفسي اللي بل أضو إسقياس وحول أو النفط هذا لا تعشي ولا كامل لا تعشي كمال الإيمان درجة ذاسي واحد كوب جالس قفنا وأنا سوق إفهم تحساسا هو حديث وأنا قاعد بيعبسي قاعد بحديث بيعبسي حداد علم الذي علم قال ولا كامل لا تعشي حداد عبادة الذي عبادة ولا كامل لا تعشي إسكابة أبا الدنيا ده ناف صورة في الدنيا ده مال يا عرور يا واحد صورة دين تلفتي دي بالوجلية هي حدو باب من أبواب الإيمان أبواب العبادة إلى هاي كفري ولا كامل لا تعشي واحد دون ساعة إنه أضيء كوكم من هذا عنو تذكر كلام مسلم تأنسين أما سلة أذق ويان ركا لوضع الريموت ونبه هن إن المركن حينما نتعامل مع أخطاء إخواننا وأخواتنا قفبك ولا لدي المكان نردق مينو وإن نحسسنا أن لوضع الريموت هذا نصون نوضو إن حديث كي أعيد عن إليه أيضا كورين دونا واحد وقتين وأعيد إلهي سبحانه وتعالى سورة النور ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سورة النور بآيدني أي كتها الله وحكى ليس حادثة إفكيغا حادثة إفكيغا إخواني واحد معروف ودعدي عائشة رضي الله تعالى عنها حاسكي نبي قال التهمي ددكي دحق لي الذين خاضوا مع الخائضين وحكم ذا سحابي جليلة ومن أهل بدرة ومصطح ويان أبو بكر حبريرتي بعد شيء أبو بكر حبريرتي أياد شيء هدي ما أنت مصطح دتك أوقف اللي بدن أدونك هدي ما أنت لصو أريد رجلي مستحمى جاريا رغم فعله كأوقف علمك بدن أوقف اللي بدن أوقف شريف سنة ما أنت نول مستحمى جاريا أهل السنة أساس يسكوا فقسين إن درجة الصحابة درجة جارسة أنا تشين لأن هذا فضل من الله عز وجل مصطح وقلطمي وهكذا الناس يخطئون وقلطمي رضي الله تعالى عنه لكن أبو بكر إن أنتيسي وعرضي إن أنتيسي وحاسك نبي جهد وإن يرى هيد أيو وعرضي رضي الله تعالى عنه مركا أبو بكر مصطحوها فقير بها من فقراء المهاجرين بوكمدها من فقراء المهاجرين مركي أرنكي عضادي عدي حدك لجو أوجي اللي حدك حدك يسوي يعني عندنا الله وقت عاطفي مايو حدك اللي أوجي أيوة حكون أرتو يري مركا إنفاق العقب سينترو وعاونتري مركو قاعدين إن كيابر تيا شيء وإن أنتي سي يحاسك رسولك وحكر شيء
ayaa wuxuu ku dhaartay inaanu dib waxba u siineen Mistax abadan shilin damba siin maayo maninka meesha gaaray marka waxay marka waa saxaabada ninkii ugu fadli badnaa bacda nabi sallallahu alayhi wasallam umada Abu Bakar iyo nin min al-masakin al-muhajirin min al-badriyin bal ilaahay masaladan siduu ugu bayaamiyay ee u daweeyay ee Abu Bakar u dhiiri galiyay bal dhageysta ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة ولا يأتلي ابن عباس إذا لقي سورنا رضي الله تعالى عنه معنى وحويان أيونا دارنين أيونا كل دارنين أيويان ولا يأتلي أولي الفضل كو فضل صاحبك زيادة ده والسعة يبلرك علماء قالوا كود واحد كفسرين وواحد أهدين أولي الفضل منكم والسعة كو زيادة يبلغ كدينا عمالك وصاحبك إلهي مالك يرزق أبديي أين كو دارن مركا فضل دي سعادة واحد كفسرين واحد هو بمعنى واحد واحد لو كده هو الزيادة والسعة في المال مفسرين تقاربها واحد هذين أولي الفضل في الدين والسعة في المال لو ذكر صارم وأيوه أنت بضن تكرار كولا قفي عي إن يرى إلهي معنا كلمة يسوع العلي بلاغة ير خلاص أنت بعلماء قراءة سيد شيخ ابن عثيمين مر بضن وكوع العليو تفسير كيسا التكرار وحي خلاص أنت إن بلاغة دي بخلاص أنت مركوا لا معناه كل الدون وماشي كتير وما حي مركا لا يراهضه ولا يأتي أين الدارن أولي الفضل في الإسلام والسعة في المال إنسان لو مفسره آيات دون السيدة علماء بدنا كدي للشيء نحن المام يسافر لي قوين ولها أيوه أبو بكر ولا أولاً صيغة الجمع بالله شيء طيب هذا كله حتى الرازي وحش شيء أفر يتمن وجهي أو تلمام ما يفضل أبو بكر بعدنا قاعدين يبوي أفر يتمن وجهي أو تلمام ما يفضل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مركها سكس طبعا كفسر الفضل والسعة مالك كوضا فسر أما فضل واحد ترى هذا إسلامك أبو بكر مركها ضد كسر أبو فضل بدنا أول الفضل زيادة أي كلها دينتها يا إيمانك صحابنا وكفل بدنا أينا كل داران أن يؤتوا إلى سيان أولي القربى كوا قرابة وصاحبك مركوا على سفينة يا مستحب على سفينة يا أولا أولي القربى بلدي أبو بكر وحوين خبرتها ولا شيء ومركا أقف قرابة واحد سينا يسوس إلى حديث كي كسر أرتين النبي صلى الله عليه وسلم وحوين ومحي وصدقة وصلة صدقة الله سيدك قرابة دي صدقة كل يوم معها وأنا صدقة وأنا الصلة الحلولين يسوع إن دتك ما نكمل ما أنت أها محاول كذا أي ده قرابة الله أيانا كل دارن بو إلهي إني وحسيان كوا قرابة وصاحبك والمساكين مساكين كوا وذو الحاجة دتك مساكين إن أوبهن لساعده مستحنا كواسوها مسكين بوها واي والمهاجرين يكون سو هاجري دبور في سيد إخواني مستحي سو عاشا كهالله هدنا لكن فلقيسي يهجرديسي يوم قرنسا ومدينة من مكة إلى مدينة سو هاجري مش لك مصارين هو الله أخرى مع خطئه سو خطئه سمي أي هدنا وحي إلهي وقريا وليه والمهاجرين في سبيل الله يكون إلهي درتي أسو هجردي صحنا رضي الله عنه من المهاجرين taasi waxa laga daliishanayaa ikhwaani waxa laga daliishanayaa in gafku aanu burinayn fadiilada qofka niman suufira ay waxna haduu qofku dambi weyn ku dhaco de xasanaadkiisi iyo fadligiisi iyo sawaabiqdiisi wanaagsaneed ayaa meesha ka baxaysa hada khata ودليل على ذلك إله بابا أقرأ يم يصطح مع أنه خاض مع الخائدين في شأن عائشة رضي الله عنها كوي إسكت حق لي أرنك يا عائشة كهالله يسوى كم ذها أيه دنا إلهي ميا لقى حيوي سفدي مهاجرين ماذا ما لقى ما حيوين بدليل الآية بدليل القرآن لقى ما حيوين إلا وحويلي والمهاجرين في سبيل الله وعيهم مركب محلوي أينا كل دار بالي وأبو بكر هدارن أوران مستح والحين كانوا قوينيا صدقة دي سين ما يه أوران عيدوا حتى المام يا إخواني إن قفكوا هدو دارتو وهدو الصوب بحضو
wixii uu ku dhaartay wax ka fadli badan oo ka wanaagsan oo ilaahay qurbadiisa iyo taacadiisa ay ku jirtaa waxa weeyaan dhaartiisii ha jabiyo ha ka kafaaro guto waxa ka wanaagsan wixii uu ku dhaartayna ha sameeyo wadii xitaa dhaar gaarto ayaa sharaa'id waxay ku tusaysaa wadhaartaaduun ha ku dhegin sida maraboobtee haddii dhaartaadii wax ka wanaagsan ay kuu soo baxeen dhaartaadii kafaaro gud ka gal soo garan maysid oo dhaartii jabi waxaan ka wanaagsan waxaad ku dhaaratay ee taacada ilaahay ku jirtana samee baa leeyahay waayahay walyasfaxuu walyacfuu ha saamaxaan علماء قار كود با لبدان عباراتنا وليعفوا هي وليفصحوا وليصفحوا وحكوف سموا بمعنى واحد لكن علماء قار با وليعفوا عن افعالهم افعال شيء سميين هكعفيان وليصفحوا هناك مقرن صدافان اقوى شيء يكون هذين لكن بمعنى معنوه محي ووحي دبتي اي عايشه وجيستين أما قولاً أما فعلاً هالنقطة وحوين هك سامحان وهك دوران وليعفوا هعفيان وليصفحوا هدافان وهسامحان ولكن تعالى إلهي وصور شيء أي هذا تشويق أي الجليني يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وإلهي ألا تحبون بأيضاً شعرين أن يغفر الله لكم إلهي يدم العفو والله إلهينا غفور رحيم وإله دم الدافع الرحيم كأدومي سووا ونحرستا يعني ألا تحبون قالوا ألا مين أنش علين أن يغفر الله لكم أيضا معنى وين بكتيرة أو مركا قف كوجفي أما خطأ سميي كوسميي أد أضافيسو أما ولا على يسوق الدمي أيس سامحيان وحن أجر كحيت كيلسة لا تكيلسة ميانو دون إنه لا يكون عفيو ميانو دون إنه الله سبحانه وتعالى كودم دافو عائشة يأتي حديث يقول هاد يا رسول الله هدانا وقال همين كل التقدر قال لا يوافقشي وما حين هذا ما يكتب التقدر همين كفضل يقبضن من يقولي وحتى الله منك عفو تحب العفو فاعف عني تعفو يقول دون مركا أظن عفوي وإن أذكر دقنتو أو أدت كمان تا أذكر دقنتو أو تسامح عايد سوى حلقة حديث كونت المرة دوناون النبي صلى الله عليه وسلم وحيري عبد الرحمن بن عوف باسورنا مركا يانا كايمن تاسينه ابو بكر بركو ايدي مقلي سيده حديثك كسوغان وحيري بلا والله اني احب ان يغفر الله لي ابو بكر سباق الخير بوها ابو بكر ميل خير لو شيغا ايا كهكنايا اما دي بو غوناي مر الله مركو ايدي مقلي وحيري بلا هابو والله إلهي كل دارته إني أحب أن يغفر الله لي وأن شعل إلهي دم دافع فدي إلهي قدام دافعه نفقدي أن مستحسه عليو وحويا وان شعلي ديتنا حلقي وكبل أبو وانكو نفقينا يا أو صدقني أنكسين يا وانكسين يا والله لا أنزعها منه أبدا أنت نولي نفقدك كتير ما يبي وهكذا المؤمنون أي صحابته أي أولاد مجرين آياتها القرآن كحديث كان يرد المرون إن شاء الله وحديث عن برا مغشير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أي وحويلي رسولك الله صلى الله عليه وسلم أي وحويلي 3 والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن سد حرمون كل دارني يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم حنبي في دارسي وأرمون ويا سد حرمون وأن كل دارني يا أبوي وأن دول مرون توقعنا سواء أويلي لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا مال صدقة ستين حولين وحبك النقصان من مايه صدقة يستبو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها قف أدون مظلمات لك قلي قف لك قلي قال ذو سميي مظلمة نوع وحوي نوع كده نقطة مظلمة في العرض مظلمة في المال مظلمة في النفس واحد انتهى نقطه أدون مظلمة لك قلي سامحي يسوى وجه إلهي سبحانه وتعالى كدون أيها هدو ساسميو رفعه الله بها إله بكر وقام وفضل عفو قوية عفو
إلهي ما ضدك هداد سكع في ذو إلهي بكركو قاضيا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أطون كيف فرط باب وضدك أون كده ورسنا يكتو غايو وأنا باب فقر يفرطي هذا عيدا سي حديث كاسي أيانا غفلا فضلقا وين وليه هي عفيو إلى أبو حفية إنه وحده الله إنه عفيو مركا عادك اللي مر والبا هداد reerka isku qaldantaan cafi hadaad carruurta isku qaldantaan cafi hadaad saaxiibada isku qaldantaan cafi ninka shuraakada aad maalka ku wada tihiin hadaad isku qaldantaan cafi walaalka kale saaxiibka tihiin haduu kuu gafa cafi cafiga waxaad ka dhigataa sajiyad iyo tabci ka dhigo ilaahay baa ku cafi doona nasallahu jalla wa ala an in dhamaantiin bilaahi nafiyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاك الله خير وبارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور الشيخ محمد شيخ عبد الرحمن كاريه وموضوع عفوي وناقيس إنه قاضى دقي فمن عفا وأصلح فأجره على الله قفك إلهي سبحانه وتعالى دتك عافية إصلاحيا وهجاجية وحي دعي أجر كيس إلهي بوكهلي سبحانه وتعالى موضوع الصدحات إن شاء الله وحان كوري جنيا فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد وحق أي اسكوليهين ددك مسلمين دحضوضة الشيخ أيام كوريج إن شاء الله بارك الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد ولا ليال إلهي درتيس ولو ولا لوب الأخوة في الدين أخوة في الله ولا التنمى الدين تا وحويه من الله سبحانه وتعالى ودح دقي تذكر رميي marka waxa jirta walaaltinimo nasaba iyo walaaltinimo amalka lagu midoobo lagu walaaloobi waxana weyn oo xoog badan walaaltinimada magaca Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo iimaanka iyo diinta ku timi ba xoog badan waana arkaynaa oo دور علامات بانو تسيناي اولا walaaltinimada iimaanka walaaltinimada islaamka walaaltinimada diinta dadka walaalaha muuminiinta ka dhaxeeya waa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxdhigay dadka muuminiinta ah quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ku cadeeyay meelo badan oo fara badan Ilaahay u adeegsaday siyaabo kala duwan innamal mu'minuuna ikhwatun wala mu'miniinta walaalahan halkan maxay tahay ma hooya wada dhashay mise aaba wada dhalay maya waa ka weyn tahayo waa nasab Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxdhigay oo iimaanka ah nasabul iimaan إلهي سبحانه وتعالى يقول فأصبحتم بنعمته إخوانا كلا دون كلا جنس دون كلا لغة دون كلا أف دون أو كلا مذهب دون ولا إلهي سبحانه وتعالى رحمة إلهي النعمة سي إيمانك ولا لودين ولا إلهي سبحانه وتعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وإن تخالطوهم فإخوانكم إلهي سبحانه وتعالى القرآن كما يلبد الكوع عليه walaaltinimada ماذا الصوت كينية دين هان كتمي تاسي هرتو وحوق بدنتا هاي مد لباد علامada gaar ah oo ila leedahay oo mid nasabka aan ku iman baajira oo aan lagu helin tan nasabka aabaha walaalka iyo hooyada kay kula dhashay ama aabaha kula dhalay aan lagu heli karin hadaanu iimaan ku iman waa koowe midan iimaaniga ah walaaltinimada aad ugu xilato iimaanka waa cibaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu cibaadeysanayso oo
جنة طريقي سوي إيمان كاجا دبنا مديوي لا يؤمن أحد لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب اسكو حريين مركا اسكو حران استعلانتين ولالتين مدين إيمانكين جنة ساتكو كل هذا باسكو حران هذا الله بعد ولالتين مدين إسلامك يا محبة وباقي إلى قيام الساعة إلى جنة الله تبنا ولالتين مدين ويجريسا وكلاته ويقايسا هدان إيمان جرين ويقايسا حلقة الله بوضع الشيء إن بدنا النار آذو بدنا الجنة آذو ويقاضي حلقة سيكون قاضي حوا ما رحت مطرين بل أدونك إنتاني كتجين بالغيا ويناني إصلاح لمبا إلهي سبحانه وتعالى لي هي الأخلاء يومئذ ما أنت قيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين واسا بتبادي ولا التنمو باقي تهي آيات كان إلهي كل جنة إني يقول ولا إخوانا على سرر متقابلين قلبي قوضة إلهي سبحانه وتعالى وحول بكثيبين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وهكذا لقارتها هاي دينتا وكنت ما هو أضك ويه أوثق عرى الإيمان سيدا صوكله جائزين ووين أو إلهي كبحيه أيان لقو شيئين مدى نصبك ولالت النماذا قبيلك أما نصبك عادي قاهب بني آدم كان لقو تلمامين هويرات حكم ذا المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام وحي ذلك إلهي درتي السجعل ولا لها منابر نور بيكو فرديان إلهي سبحانه وتعالى مدكتيسة وكلتا يديه يمين أي فرديان ماشا سالك يا سيدوك عرش إلهي بالغوهرية والرجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه وحكى له كم ذا إلهي سبحانه وتعالى وحكب بحياه ردنك إيمانك معانكيس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان لما شيء ولا عليك ولا شيء نتقولش دانو إيمانك يا إسلامك يوان الله أول عليك هو يا إذا تشابه إذا ولا درج لكن معاني إيمان مال أتقولش وكان عاد إلهي درتي سسوج عشي ولا على النماذج إسلام كوي على مدها صورنا بلاد هاي إلهي سبحانه وتعالى وكبحيا حقوق بدن بقى مركا كواجبيسه ولا ليال aad bay u fara badan tahay laakiin mid ugu horeysa uguna muhiimsan waxa weeye inaad ba isku mid tihiin oo isku ruux tihiin laba maba kala tihiin laba qof maba kala tihiin hal ruux ba tihiin hal naf ba tihiin marka naftaada sida aad la jeceshahay iyo waxa aad la jeceshahay iyo meesha aad dhigayso yumba tiisana dhigaysa hal ruux ba tihiin لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حديث هذا المقلب وي ما إيمان كاج ما أنصح أيوم من نقول أيوم لما يسترن هذا لجعل أصلا لجعل شيء آيتي إلهي سبحانه وتعالى أيضا دور وكتل مامي ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين توا بهال قف واي هل روح واي هل نفس واي هداد ديشو تادا ديش هداد ما راح نقولهم أما عيدو هذا إسعاي هداد درتو هذا إصدري كلمة ندور أظن هذا إصدري ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب marka kow horta inaad la jeclaato waxa naftaada la jeceshahay lana nacdo waxa naftaada la naxayso ma jeclid in lagu xanto ha xaman ma jeclid in lagu duro ha durin ma jeclid in lagu dulmiyo ha dulmin ma jeclid in lagu xaqiro ha xaqirin ma jeclid in dhibaato lagu geysto maalkaaga ama cirdigaaga ama sharaftaada ha u geysan ma jeclid in lagu xadgudbo ha ku xadgudbin naftaada waxaad la jeceshahay wanaag in lagu karaameeyo in lagu ixtiraamo ixtiraam in lagu qadari in cadaalad lagu sameeyo jecesh cadaalad u sameey ma ujeedaa
wax walba naftaada aad la jeceshahay isaga ka soo qaad oo xaqa koowaad kugu leeyahay waxa kale oo xuquuqdiisa weyn kamid ah yani qalbiga inaadan ugu qaadin xumaan iyo xasad iyo xiqti wax xun iyo qishi iyo khiyaano iyo maarad nacayb iyo xasad qalbiga inaadan ugu qaadin oo waa kan ilaahay subxaanahu wa ta'aala rabbana اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا حديث كيما معروف كهاي الإمام أحمد ورينا هو أنا قلنا قصة ننكي نبي عليه الصلاة والسلام ودور جريري ننكاس الباب كسو قلي دونه وأهل الجنة ننباسو قال ننكاس الباب كسو نن أهل الجنة الباب كسو قلي دونه نن أهل الجنة صدح الجاربة سكون ننبو أها markii ninka saxaabiga uu ka dabatay arrinkiisa ogaaday bal ninkan cibaadada weyn uu sameeyay amalka wanaagsan ee weyn uu sameeyay muxuu yahay wuxuu ogaaday inaanu wax haba yaraate uurka ugu hayn dadka walaalihiisa muslimiinta ah waxaan wanaag iyo naseexo ahayn marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala وحام رياضك مؤمنة قلبك والسلامة الصدري مد اللباد صدحات وحويه وحقه كل هيئة إنه كان نبض قاله قفك مسلم كل المسلم على المسلم حرام بالنبي عليه الصلاة والسلام مسلم كستا مسلم ككله حرام بكي هي كحد قدو كيسة حرام بكي دمه وماله وعرضه شرفتيسا حوليهيسا يا مالكيسا إنك كان نبض قلان إنك كان نبض قلان وعكلا كلية هي نصيحة كلية الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصح لكل مسلم نصيحة كلية هي wanaagiisa oo miraayad isaga oo ah qofka oo isma arko isagu laakiin miraayada markuu istaago ayuu arkayaa hadii wajiga wax ka saaran yihiin hadii waxyaalo maaragtay aan fiicnayn oo u baahan in iska tuuro ama saxar isha ka saarna ma wajiga ama wax ka saaran inuu iska tuuro u baahay miraayad u baahay walaalkiisa miraayad u ah qofka muslimka ah walaalka qofka isaga arkay inuu wixii ceeb wixii xun wixii aan kugu fiicnayn waxaan ku wanaagsanayn inuu markaa ka qaado ka tuuro kaaga naseexeeyo xaq uu ugu leeyahay oo si amaana leh oo waliba yani run ah inuu oo maartay ikhlaas wuxuu kale ku leeyahay xuquuqdiisa kamid ah u gargaaridiyo u hiilinta marka uu hiilka u baahan yahay oo gargaarka u baahan yahay sida nabiga kaleey salaam unsur akhaaka zaliman أو مظلوما هدو وحظلمنا إياها دي للظلميو وقرقار ولا الكاغا مسلم كأخاك مسلم كأ وقرقار وسيد وقرقاري هدي للظلميي وقرقاري سا والظلمية كداية ولكن كداية ظلمية يعني واحد قدبن يعني حوله سي مالكي سي نفتي سي حقوق سي واحد قدبن يعني هذا هو وتكعلني سا هدي ويسقوا ظلمنا يظالم ويهانا عندك كقبريسا وعلى ذا هي ولا لو كجوك بعض ظلمنا يساي كجوك والحد قد بيساي كدا والغلطنت هاي أما ساسي ساس ويدتك واحد قد بتكدا تاس لفتيد وحي وتقرقارد حد واحد كعلنيسا وبني آدم وضعيفه إنه يسوي حد قد به والدم بهلكا وكقاته أياد كعلنيسا waxaa kaloo ka mid ah xadiista nabiga kaleey salaam badan oo noogu tilmaamay oo ah inaanu xaman inaanu malaxun ku malayn suu dhan tihamin jaasuusin wax ka sheegin hadalkiisa iyo meel cid kale u geyn war ka qaadin oo war xun u geyn oo dib galiya xaman oo an yaakula lahma akhihi maytan walaaltinimada walaalkiis diinta ayuu xamanaya hilibkiisa cunaya
waxaa ka mid a nabiga calay xuquuqda uu sheego inuu salaamo hadduu ka hor yimaado, inuu maaragtay wajiga u dhoolla caddeeyo, inuu maaragtay hadduu xanuunsan yahay soo booqdo, haddii uu maaragtay janaasadiisa iyo meydkiisa uu maaragtay raaco, dacwadiisa uu ajiibo, haddii uu u yeero ama uu casuumo oo aanu maaragtay mashquul ahayn ama cudurdaar lahayn ayuu baahan yahay. arrimahaasoo dhan aad bay u ballaaran yihiin, laakiin inihii ugu muhiimsana ayuun baan ka tilmaamay. sidee lagu heli karaa? waxaa lagu heli karaa inaynu u noqonno akhlaaqdii islaamka, oo qof walba uu naftiisa ku xisaabiyo akhlaaqdii islaamka. nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim. caaisha radiallahu canha waxay tii kaana khuluquhu lqur'aan. dadka muslimiinta maanta waxa dhibaatooyinka dhan ay u taagan tahay akhlaaqdii islaamka ayaa agteenna ka dabacday, akhlaaqdii qur'aanka ayaa agteenna ka dabacday, kadibna xuquuqdii baa luntay. marka akhlaaqdaas inaynu u noqonno qur'aanku ina barayo oo aynu maaragtay ku dhaqanno oo dhaqan gelinno ayay walaaltinimadii markaa ku imaan karaysaa. qof walbaa naftiisa ku xisaabiyo. sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi. جزاك الله خير وبارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. إخواني إن شاء الله ندوذا قيبت هذه الدنبية قبدي أي مريسا ولماذا تعليق بان كعلين دون هدي الله يدمو وحير وحن إشارة لها الدقيقوين رادك أي كلية هشيسك دتك مسلمين تا أنا راد في عن إنو كرهبو oo ay ka mid tahay jawi walaaltinimo inuu muuqdo oo ummaddu nacaybshaha iyo isgoynta iyo xumaanta faaftay in ay beddel ay ka noqoto jawi sulxi iyo walaaltinimo. waa raad fiican oo dadka muslimiinta ku hadhaya. waxaa kaloo ka mid ah روح الأخوة، تأصيل روح الأخوة walaaltinimadii inay dadka muslimiintii si dhab ah u wada dareemaan oo inama almu'minuuna ikhwa, dadku waa walaalo sidii culimmadu ay noo sheegeen, allah subxaanahu wa tacaalana uu ka hadlay. waxaa ka mid ah raadka qasdu lcadli wa iqaamatu lqasd, yacni in cadaaladda dadka dhexdeeda ay ku faafto iyo wanaagga uu dadka muslimiinta dhexdeeda ay ku faafaan. waxaa ka mid a intishaar inay faafto iyaduna in allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta yihiin kuwa u hoggaansan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yeelaya, ka dambeeya amarkiisa, qaadanaya, shaytaankana caragelinaya, oo dadka muslimiintii shaytaanka ay carageliyaan. ilaa wuxuu dooni mar walba waxaa weye muslimiintu inay kala tagaan buu isagu rabaa. in ilaahay subxaanahu wa tacaala raadka wanaagsan dadka iyo bulshada halkaa ka jirta iyo waddankii heshiiyey iyo ummaddii heshiisaba ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo dhibaato badanba uu kaga xijaabayo. juhuudda dadka muslimiinta ee muslixiinta ah runtii iyaduna inay muuqanayso dadka mar walba dad muslixiina oo wax heshiisiiya oo islaax daat albayn ka taliya oo fasaadka iyo maaragtay xumaantana dee mar walba ummadda u sheega oo uga diga xumaanta, wanaaggana ummadda u sheega in lala hega insha allahu tacaala laga helo. waxaan wax yar ku celinayaa culimmada insha allahu tacaala si sariica in mowduucii si guud ahaan wixii uga soo baxay ay u tacliiqiyaan insha allahu tacaala. sheekh maxamed, sheekh cabdiraxmaan kaari aan ku hormarin insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني سيداي علماء وينوت المامين جزاهم الله خيرا. صلحك iyo walaalnimada islaamka iyo raadka ay ku leedahay nolosha muslimiinta, fadliga cafiska iyo musaamaxadu waxaan jeedaa musaamaxadu ay leedahay waa arrimo iska cad weeyaan oo iska muuqda. waxay la tahay qofka muslimkii
haddii uu u laab xaaran yahay dadka muslimiinta haddii uu dareysan yahay mar walba ciddaad la dhaqmaysaa waa walaalahayga muslimiinta inama almu'minuuna ikhwa ilaahay inuu dhiirigeliyey in mu'miniintu ay xo yihiin qalbigaaga waa inaad u ballaadhiso oo qalbigaagu saafi u noqdo dadka muslimiinta wanaagga islaamnimada iyo iimaankana taasaa lagu gaadhayaa arrimahan ay mashayikhdu ka hadleenna waa arrimo rakaa'is iyo asaas u ah sidii loo heli lahaa bulsho muslina oo caafimaad qabta arrimahaasi aawadood walaalnimada iminka waad aragteenoo ikhwaani yacni jaamacadaha maraykan waxaa jirta takhasus ilaa graduate school lagu dhigto oo la yidhaha conflict resolution dadku markay iska hor yimaadaan oo ay isku qabtaan seebaa loo xalliyi karaa waayo dee mujtamac bila-aadin oo wada nool oo isfaham la-aan baa soo dhexgeli karta waa la ysku gafi karaa aragtidaa la ysku khilaafi karaa dadkan iyagoon muslimiin ahayn ayaa haddana tajaarib albashariya ayaa waxa ay gaadhsiisay in la helo qaab cilmiyeysan oo lagu xalliyo mashaakilka mujtamacaadka dadka bila-aadmiga dhex yimaada walidaalika ayaa imanka yacni isteedyada badankooga maraykan waxay gaadheen xal ah nin iyo xaaskiisu hadday go-aansadaan inay isfuraan waxaa lagu leeyahy waxa lagula talinayaa intaynaan jajka horta bal u iman mediation soo sameeya mediationku waa maxay waa tii qur-aanku inoo wasulxu khayr sulxiga sheekhu ka hadlaayay weeyaan sulxiga uu sheekhu ka hadlaayay weeyaan marka ikhwaani yacni xayaatada bini-aadmiga waxaa loo baahan yahay in la helo qaab cilmiyeysan oo lagu heshiiyo oo lagu xalliyo mashaakilka waxaa loo baahan yahay masalada uu sheekh maxamed ka hadlay oo ah walaalnimada islaamka in la xoojiyo cafwigii aan ka hadlay ayaa loo baahan yahay in la xoojiyo aahaarta arrimahaasi leeyihiin oo sheekh axmed nuur uu ka hadlay ayaa loo baahan in la xoojiyo la camalgeliyo la falgeliyo laguna dhaqmo qof waloo inaga midina waa arrimahaasi uu magaranaysaa ku dhaqmo walaaladiinu ku raaligeliyo ayaa maalinkaa maanta loo baahan yahay mu'minkuna mar walba waa inuu walaaladii ka dalbo cafis iyo musaamix ilaan ceebka saliim miyaan ahay miyaad u ceebka saliim tahay qof bilaadana ceebka saliim ma ah kulli binaada khataa khayr khataan tawaabiin ilaahi subxana wa tacaala dhammaantiin bay hayna saamaxo inaguna muslimiinta saamaxno wajazaakum allah khayr فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر بسم الله waxaan rabay inaan insha allahu tacaala qodobo dhowr ah oo dadka wax heshiisiinayo laga raba inay ku sifaysan yihiin inaan sheego dad badanaa ka shaqeeya heshiisiinta dadka muslimiinta dhexdooda marka waa insha allahu tacaala waa soo koobayaa waxaa ugu horeyso qofka markuu heshiis galaa inuu niyadiisa istixdaarsado inuu ilaahay dartii ula jeeda heshiisiinta waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaah dad haddaad heshiisinaysa inaad ilaahay dartii ula jeedo subxaana wa tacaala arrinka labaad waa inaad ka fogaataa waxyaalaha danta gaarka ah adiga qofka wax heshiisiinayo waa inuusan dan gaar ah wadanin oo manaaficda adduunka iyo waxyaalaha shakhsiga ah iyo adigu maaragtay manfaco gaar ah waa inaad xagga iska dhigtaa si aada maaragtay loo gaaro hadafkii la raadinayay waxaa ka mid ah tan saddexaad waxaa ka mid ah cadaaladda inaad had iyo jeer iltisaamto markaa wax heshiisiinayso cadaaladdaasna haddii ay ka soo baxda dad lagu kalsoon yahay ama hay-ad lagu kalsoon yahay ama dad xul ahoo lagu kalsoon waa inay noqon dadka dad yacni lagu kalsoon yahay waa in markaa cadaaladda had iyo jeer cadaaladda ilaahay waa rakisay subxaana wa tacala cadaaladdu rakisay
وإن عدالة سميسا وحكى له كم إذا صفات كلا جرب وقفك لحد حادك وحد حادنا أيوه صار إنه يهي قف عاقل أو حكمة له أو يعني قفل بحقي سيجار سينكر قضية فهم كرا طرفه هذا جذيه هذا فهم كرا وفهم كرا مارت خلافك إيوه وحقود حيو يعني ضدك كان حيو فهم كرا وعاقل يهي أي الربا وحكوا الربا قفك إنه هوس سقر سودي إنه من البقار ورثته وهشيسينتا أين النقوة سوق يالله لا بقف هذا حدين يسا لا بده يقف هبل الكتجيو ساسو يريو ساسو يريو ساسو هبل الكتجيو إسلامتي ودار قوس لحدين وحركة سرتو دي برنامج كيد حدين برنامج وكفا فينا تذا بدنا وقلين سرتو دي برنامج الأمقلو مركوا أنا هذا سرتي برنامج أنا كفيدين لا خير في كثير من نجواهم إلهي سبحانه وتعالى خير بدن ملها إن بدن وفق وذا هذا النجوى وفق أما قرشر هوسه وحكم إذا إن دورته وقتك مناسب كأ إن دورته وهشيسين تلبض إسايسته سي أي يعني مناسب ونقط وقت في عنا وحولته والله وضع قف عاد هشيسين كرتو أما ضد كاد هشيسين كرتو وحكم إذا يعني إنه كل سنة هشيس كشريعة الإسلام كا هشيس هذا وحلوجو بيسكري وحلوجو بيسكري يعني لكن هشيس كذا وإنه يهشيس شريعة الإسلام كقصة ليس أو يعني حاجة سي لو جارو إسجعيل إيوه إسكو كالسونان مدة سجالات وحكم إذا قضب كسجالات وإن هذا الله أتكو هذا يسوى إن الحولة قفك وحشيسين هاي وإن هذا لبضي قف وحك عريسين هاي قف كان كله مرك الله هذا يسوى مكان الله هذا يسوى النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة يا علي هي إسكو عروض علي وأسجدتكو مساعدكو إسكسي هذه مركز النبي يقول يمد حكويري أين ابن عمك إن أذرك آوي إن أذرك آوي وكوير النبي هذا الكاس وحوا معلوجة ذا إن لم يجي على قدر زوج نمذا كلا كسو كيسو إن المادريين فاطمة يا علي مركا إن الحلتو يعني رياضة الاستعمال يسو هل رياضة استعمال شاد عكر تعرض إنه خربه أما مد فوقيه مركا تانوا يعني وحكلو كم ده مدة طمنات إن هذه الجير المرنتا يمير كإن الحلتو أدنى أد سكفوجاتو أدين تفرح بدن له يعني سي كالجعيلك يو على قلبك عن مارتي لوجا فوجاتو هذا أد بدنين كانت سميسي ده ترادو وأد فرب بس حدا يفكر رد فعل إنه سميه لقى يابا ويلا هذا مارتي نكاد هذا حد كأذاب اللوجو صادر كل هذا حد ما هي هذا هو الربع إنه مارتي كدلمي وحا عمر بن الخطاب وحده جرى وموسى الأشعري وقاضئة وحكي رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن لبدا قف ولا كلا حكمي مركا حكم لو دفتو سوعلي او هشيسي maxay xukunka xanafu leeyahay yaa markaa soo celiyo heshiisii saas u dhihi jiray Umar radiyallahu anhu yaani waxaad ka bilowdaa leeyahay jalsooyinka hal ila ula fariisato dadka isu keenin hal mid bagaarkiisa ula fariiso waxay ka mid tahay in heshiiska uu fulo ay u dhowdahay maaratay waxa kale ka mid ah ka ugu dambayso إن إلهي بريده سبحانه وتعالى قفك هشيسين إلهي إن بريده ريال ربطة إنا مصلحة يسو ريال كذا هشيسين إلهي أبري إلهي ونحوذ هشيس كذلك دعاء وحوين واي عبادة وين أسعودها إله الله بدر ريال ودقال سن هشيسي إله صومالي هشيسي إله صومالي هشيسي أمين لها إله صومالي هشيسي إله قلوبته ذي سكان إله استجعل ليسي إله وحي كلاجينا ماشى وكسر إلههم ملك جوجان ولا كذي دعاء إلهي سبحانه وتعالى بريده
ilaahay barida subxaana wa tacaala ayaa ka mid a waxyaalaha qofka heshiiska samaynaya laga rabo. jazaakum allah khayr. inta kale waa arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo culimmadu ay ka wada hadleen. insha allah jazaakum allah khayr. جزاكم الله خير. شيخ محمد إن شاء الله. بارك الله فيكم. laba kelimadood baan jeclahay inaan ku kabo. kelimada koowaad waxa waaye labada darajo oo dadka haddii wax dhex maraan ay waxooda ku xalliyaan oo labada sheekh ka hadleen, midna yahay sulxiga, midna yahay cafiska. labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay oo sulxiga ilaahay wuxuu yidhi wasulxu khayr. sulxigu horta sidiisuba khayr u yahay, la heshiiyo waaba khayrba, wax dhiba ah ma keeno, wanaag iyo khayr buu keenaa. fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum buu leeyahy ilaahay subxana dadka mu'miniinta ah. cafiskana waaba darajo ka sii sarraysa oo sulxigu wuxuu xambaarsan yahay isu tanaasul. qofba waxbuu ka tanaasulayaa, waa la isu soo dhowaanayaa, marka meel dhexaa la isugu imanayaa. oo aayadda wasulxu khayr ay ku timi wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan aw icraadan falaa junaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wa sulxu khayr. dhexdooda haddii ninkii uu kasii jeedo dhib ma leh buu yidhi ilaahay subxaana inay dhexdooda isu tanaasulaano. hadduu rabo inuu furo ay tiraahdo okay war furiinkii iska daa oo adna hay furin, anna waxyaalaan kaaga tanaasulayaa. oo masalan haddii uu haween kale la qabay ama haddii uu nafaqo badan ama xoolo badan siin jiray ay tiraahdo waxaas waa kaaga tanaasulay, waxaasna maaragtay kaama rabo waa kaa cafiyey, saas oo kaleeto isu soo dhawaada. marka qofba waxbuu ka tanaasulaya. sulxigu waa saas. cafisku laakiin wuu ka duwan yahay oo kasii darajo sarreeyaayo qofku isagaa wixiisii oo dhanba ka tegaya. ya xaq buu lahaa, waxbuu lahaa, wuu cafinayaa. waa la dulmiyey masalan ama waa lagu xadgudbay, wuu cafinayaa. meeshii looga goyn lahaa xaqiisa wuxuu leeyahy waan cafiyey. oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam dadkii reer maka iyo dhibaatadii ay kusoo sameeyeen masalan wuxuu yidhi idhabuu fa antum tulaqaa, waxbaa laydinma baahna. kii nebiga calayhi salaam dhibka ku samayn jiray, kii cayn jiray, kii maaragtay qodaxda u dhigi jiray, kii uuska madaxa ka saari jiray, mid kastaba ha noqoto dadkii dhibaatadaas oo dhan ka qayb qaatay wuxuu yidhi taga waa idin cafiyey. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam saasoo kaleeto laa tahriiba calaykum alyowma yakfiru allahu lakum. walaalihiis oo dilkiisa u tashaday oo god ku riday oo ceel ku riday wuxuu yidhi waa idin cafiyey. cafisku waa ka darajo sarreeya. kadibna waxa weeye sulxiga waxaa u dambeeya waa markaa xukun. waa tan uu cumar radi allahu canhu leeyahay xanaf buu leeyahay. ilaan labadii qadaa hadday timaado maxkamad ya waxaa laga yaaba xukunku mid inuu ku dhaco midna halkaa ka baxlayno. marka taasu waa meesha ugu dambaysa. waxaan jeclahay inaan wax yar qodobka labaad ku tilmaamo. ilaahay subxana wa tacala dadka mu'miniintaas u heshiisiiyey. dhibaatooyinka sulxiga iyo cafiska hor istaaga waxaa ka mid ah qofka xanuunkii yacni arrinkii uu ku hayay ayaa laga yaabaa qofka kale oo walaalkiis inuu arko wax haba yaraatee ay isu imaansho ahi inaanay dhici karin. bimacnaa ama maalkiisa ama naftiisa ama cirdigiisu ku xadgudbay. saddexdaba oo nabigu calay slam xarimay. ilaahay qur-aanka wuxuu nagu tusay intaba in la cafin karo. oo aayaddii sheekh maxamed uu soo qaaday ee misdax waa aayad cajiib ah oo waxa weeye ninkan bedriga ah waa nin fadla ah, asalkiisu waa nin mu'min ah, ma aha nin munaafiq ah, ma aha qof waxaan u sameeyey xumaan guriga nebiga calay slam iyo caaisha uu la rabo, ma aha. misdax waa nin mu'mina laakiin gaf buu ku dhacay. ilaahay subxana wa tacaala gafka uu ku dhacay waa lagu canaantay. ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucunuu fi dunya waalaakhira. ilahay subxana lowlaa id samictumuu dana almu'minuuna والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولو عنانتي dadkii عائشة رضي الله عنها kuwa munaafiqiintana waa lagu fogayey والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. waa darajaat. laakiin kuwa mu'miniinta ahaa oo qaldamay waa la canaantay.
أبو بكر بامرك دينا عكلا كسوب حيو وحير والله لا أنفق عليه مرة أخرى سجنا مرك دينا عكلا لقرت إنه جويه بوكوت الشضي إنه جويه مر بهذا قفقة كل عي إنه جويه الله قبتي مرك يسجنا أبو بكر فاضل كي وناكسنا يا هلو خير كأها بالله قبتي حليل وكادي ساس ما أديقنا حتى لا احتجن يا حتى لا احتجن هكذا عرن إن هذا نفقين قفك وكذا عي وأنا لا أبال مري حتى والله شاذري وحد ما لقودي حد كان لقودي يخطأ يكون عين إيمان كودي وحمير بدري نمذي وحمير سابقين وحمير وعلى شيء سجى يا حسان ابن الثابت وشاعر النبي عليه الصلاة والسلام يا حمنا بنت جحش صدق عغف بأرن كاس ذاتك المؤمنين أنت اللي يقال لأجي هي كل عاي صدق له حد بالقول في والله شاذري مع ذلك مركي يجي هذا أنا لو عين الواحد يقول إلهي وقفته وحيري ولا يأتري أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين أولي القربى أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله نكن وقرابه وأنا ننسوه جرود ومهاجر أما أنت سيبوا إلهي يتنشأ وأنا قاعد العنانية أقويا والله جهاد الله حد كلا يقول ذي حدنا يسقي الدفاعي تنوح كتصيصا ولا الإمام النووي رحمه الله تعالى كنا راضي عليه هذا لأنه تطرف بعد قد عمر مركز قار قضاء وحنوم لنا دتكون الملائكة يهين ورقف كيبل سواها وقد عكرتها والله أنا مرضى بهرت أركان يجقوي قف سيد مرأة تقوين يسوم حبينا تقوين يسوق على هذا كذا يسوم ما يسوى الشيخ وقوين بروح كذا عاية قفك وقوين وابني آدم حال رأي إلا سوء لي حراد السوق لي حال رأي إلا سوء لي لو تلحتجن أو خطأ إيسا لكن لقى جدوه والله بحيه أو يا الله مريم مرجع إلهي سبحانه وكقبطي وعيروا مهاجري وبدري وقف مؤمنة ومهاجرة لكن قف بقول عاقف كنور مرجع إنه نصاص أمورته أفقنا حوجا قالوا وحير هذا come out of the box صندوق هيسكو حيرنا صندوق صباح يا فكر كاجا حوجا واسعي يا واحد بدن إن إيمان كران يضطك إن واحد بدن لو ذاك كرتو إحنا نسقوا في قمة كلا قفكن مؤمن كا إيمان كي إيو نفاقي قيب كم إذا كل مكرته يعني وحاول قف مؤمنة بين بكل عكرة خطأ بكل عكرة زنا بكل عكرة قف بكل عكرة استيل إيمان كي سوى جوجا استيل إيمان كي سدقف مؤمن وقلب جسم مؤمن يهي أو إيمان كي لا يستا واجوجا إلهنا سبحانه وتعالى القرآن كما ربنا وكل شيء مركب ولا ليال إنه يسد مرينه دحنا إصلاح دقنه هذا هات نك يحاس كيسة هات ولا لا هات قوة شركة هات قوة عمل وداقة هات قوة واحد أحمران لما وحلو بها يعفس يصلحي يهشيس يسقدرين يولا التنمو إن مارت إلهي لو قلوا جزاكم الله خيرا جزاك الله خير وبارك الله فيك إخواني قبدي إن شاء الله تعالى waxaan rabay inaan waxoogaa muujiyo ama aan tuso runtii culimada caawa hortiina fadhida waxaan isleeyahay ama idinkuba aad ogtihiin inay yihiin culimada North America saddexda sheekh ee u da iyo cilmiba ugu weyn ugu badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha barakeeyo joogitaanka ay dhaxdeena joogaana magaalo ahaan sharaf bay inoo tahay waxaa jira culimada magaalooyin badan ama isteediyo badan oo wali aynan atagin baa jira ama ayna cagtaba dhigin marka culimo meeshay joogto khayr baa laga helaa waxa aad u jeedaan baa laga qaadanayaa cilmi bay ku sheegayaan wax fiican baad kala kulmaysaa marka in mar walba culimada qofka muslimka uu dareemo farxad markaad aragto sheekh inaad farxad aad dareento inaad u ducayso inaad ku dadaasho inta uu joogo ama inta culimada la joogto inaad wax ka qaadato inaad niyada aad u wanaajiso waa waxyaabaha runtii tawaajudkooda ay nala joogaan sharaf ayay inoo tahay ilaahi subxaanahu wa ta'ala dacwada ay u socdaan oo ay isteediyada u wareegayaan oo habeen walba meel ay u soconayaan oo guryahoodii ay kaga maqan yihiin إلهي سبحانه وتعالى ميزان الحسنات الله قليو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمنا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك هكتس عمل كافي عن أي قبنيان
innagana ilaahay subxaanahu watacaala inaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah in sha allahu tacaala habeenada soo socda weli culimmada ee qeybaha sii joogi doona haddii alla idmo marka waxaa jiri doonta in sha allahu tacaala muxaadaraad iyo kelimaad baa jiri doona bacda almaqrib in sha allah laga faa'iidaysto kullama aad kelimad aad dhegaysato wax cusub baad ka heli hal arrin oo cusub baad ku baraaruga in sha allah salaadaha gadaashooda culimmadu waxay wadaan khawaatir sidaad aragteen oo maaragtay mar walba ay culimmada mid ka mid uu kelimay noo jeediyaa bacda almaqribna waxaa socda muxaadaraadka in sha allah جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم سيدا ودقيستين iyo sida loo dulqaatayba in sha allahu tacaala intaasaan kusoo gabagabaynaynaa nadwadeennii وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته